السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan halkaan ku soo bandhigaynaa taageero ballaaran oo aanu halkaan uga fidinay maamulka Jubaland State of Somalia oo nu aad iyo aad macnaha ugu hambalyeynayno sida sharafta leh oo ay u agaasimeen doorashadii maamulkaas lagu doortay odayaasha. marka hore waxaan hambaliyo bogaadin u direynaa dhammaanba guurtida Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Jubbooyinka sida sharafta mudan oo ay ugu guuleysteen in maamul ay u sameeyaan gobolkaas goboladaas Jubbooyinka. maamul goboleedka ama dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ee uu madaxda ka yahay ay madaxda ka yihiin madaxweyne Sheekh Axmed Madoobe iyo General Fartaag. waxaanu halkaan uga soo dirayaa haddana laga waayinay maanso arrintaas ayada aan ku taageerayo oo aan ku tusaaleynayo kuwa ka soo horjeeda oo haddii ay tahay fikrad ahaanba kuwa dadka dhadayowga fikrad ahaan uga soo horjeeda arrinta bal meesha ay u socdaan ilaan waxaan lagu sameeyay sharci baa meesha ayaa la isticmaalay oo lagu sameeyay oo sharci baa la waafajiyay war bal waxa ay ayaguna markaas sheegayaan baanu arkaynaa bal annagana aanu arag fikradayadana fiiriyo sida ay tahay arka marka aanu ku taageerana yani waxaan filaynaa annagu oo runtuna ay tahay intani ay tahay tii saxda ahayd oo meesha laga rabay. mana jirta meel 100% dadku ay isku raacaan wax arrintaas la socda meesha loo badan yahay baa la raacaa meeshii guurtidii dawladaba samaysay ayuunba meeshana qaybtii Jubaland ayuunba haddana laga waayinay dawlad goboleed kana samaystay. waxaan u maleynayaa way mudan yihiin in lagu taageero arrinta ayada. waa anigoo ah Sayid Jawaab Sheekh Khaliif maansadiina dhays wanaagsan. jamaamuurti jeexday jidkan aan ku soconaa jiil iyo ilaa jiil inay nabad joogtaa jadwalkuna ku jaango'an ma jiraan haddaad tiri xagee baad u jeedaa jilib iyo jamaamiya ilaa jiidi doolow hadday maamul wada jira Jubaland ku doorteen waa maxay jujuubkani guurtidii jidaysay baarlamaankan joogaa Jubalandna doortee ma jiraan haddaad tiri xagee baad u jeedaa madaxnimadu jamashiyo ma aha jeeb la buuxsado anaa jaga ku siinaya kala jabi dadkaagii jifa u kala saar waa jaahilnimo weyn ee ka joog baan ku leenahay. intaa yarta ah tuducaa yaroo dambe waxay ku socotaa barahiiraale annaga qaraabo u ah qofkii wax u abaa qabta qoladaa kale oo meesha ka qaylinayso docfuruurka ciddii qaraabo ah la hadasho laakiin annagu hiiraalow dadkaagii way israaceen dadkaaga dhinac ka raac. marka madaxnimadu jamashiyo ma aha jeeb la buuxsado anaa jaga ku siinaya kala jabi dadkaagii jifa u kala saar waa jaahilnimo weyn ee ka joog baan ku leenahay. jaatarkaynu dhiganiyo jamhuuriyadda federaalka haddaa jeebka gelisay oo tiri ma jirayaan wada joogi mayno baarlamaanka jeex baa Jubaland u soo noqon qarankuna ma jiraye miyaan kala jaqaafnaa tuducaasi xasan buu ku socdaa xasan sheekh maxamuud buu ku socdaa madaxweynaha dawladda federaalka ayuu tuducaas dambe ka socdaa iyo kii uu kuwii ugu horeeyay laakiin tuduciye dhexe hiiraalo ku socdaa tuducaa yar isagu oo madaxnimadu jamashiyo ma aha jeeb la buuxsado anaa jaga ku siinaya kala jabi dadkaagii jifa u kala saar waa jaahilnimo weyn ee ka joog baan ku leenahay. annagaa qaraabo ku ah oo ku qabanayna ka joog in wanaagsan baad ahayd waad bariiqatay ka soo noqo oo dadkaaga ka dhinac ka raaco dhismaha wadanka ka qayb qaado gobolkaagii baa joogtaa dhismaha wadankaaga ka qayb gal intaasaan ku sheeganaa. maasadii wali way socotaaye guurtidii jidaysay baarlamaankan joogaa Jubalandna doortee ma jiraan haddaad tiri xagee baad u jeedaa
jaatarkaynu dhiganiyo jamhuuriyadda federaalka haddaa jeebka gelisay oo tiri ma jirayaan wada joogi mayno baarlamaanka jeex baa Jubbaland u soo noqon qarankuna ma jiraye miyaan kala jaqaafna maanse kale oo ayaduna labaha baan ku larahayaa qalbigu waa matoorka maskaxdu ay ku shaqayso caqli baa maamula meesha damiir baan marra yeelin inuu xumaan u maqsuudo in go'aan ku maquunsho oo ay meeshu xumaato ama maaro la gaadho midun bay noqotaa in miisaanka la saaro oo mas'alooyin la eego iyo cilmi bay mudataa beeni way muhataa waxba meesha ma keento in mudnaanta la siiyo meesha aan laga maarmin maanka way ku jirtaay maxaa looga masuugi ma garateen macnaheeda maya weeye jawaabtuye markay maagtay hashii oo ay moorada diiday cidna maara u weyday kuwii maal iyo maanba u huroo moorada geeyey kuwii maal iyo maanba u huroo moorada keenay ma heleen mudankoodii maya weeye jawaabtuye xasan sheekh maxamuudow madaxweynaha beeshow ama meelaha meermeer oo marba meela ku eeg ama garo micnaheeda maskaxdii murugtee garatay hasho maankayga gadaye ma masaar bay laqday taasina waxay ahayd marka waa isku micno way isfuraysaa waa laba maanso oo isfuraya weeyo marka waxaan ku larayaa mid yaraha horeysay laakiin micnaha wadanku uu ka sii hadlaysa iyaduna oo burcadbadeeda iyo waxa soo dhan ka hadlaysa iyo baarlamaankan qaska iyo labka ku nool iyo hadaan laga waayinay iyo al-shabaabkan diin la'aanta ah oo hadaan laga waayay waxay sameeyaan la garan lahayd ayay tan ku shuqul leedahay waan ku larayaa ayadana marka black market personal interest iyo burcadbadeed baa baritin loogu jiraaye ar hadaan baqihiina ba ayay duka yeedin maansadu waa jacbur oo hadaan laga waayay English iyo af Soomaali baa la isku laray oo la isku dhafay sida dhaqankiiba u dhafan yahay maxaa yeelay qoladii qurba intaas oo sano aan jirnay luqadiina way isku qasmi laakiin afareydan Ingiriis oo gelinaya waa afareydii hore anigu intaan meesha imaaday shaqaan ku mashquulsan oo iskuulba ma tagin laakiin afareydeedii hore oo marorkii horeba ku shaqaysanayay ayuun baan ku larayaa de macnahaas ama garad marka black market personal interest iyo burcadbadeed baa Britain loogu jiraaye ar hadaan baqihiina ba ayay duka yeedin bidca boobtay islaamka oo balaaya qalqaala oo buntu qoon la ordaysa oo baradii ubadkoodu ku badbaadi lahaa bartankeeda bambooyin iyo baasuka caata ama waxun ku baabi'in leh ar hadaan baqihiina ba ayay duka yeedin xildhibaan buka oo balad jiifto oo qabyaalad ka buuxdo oo patriotic baan ahay bulshadiina u sheegi blue balaa iyo buufis waa la isbeegsanaya isku soo bayra inteeno mooshin baa ku banaan BBC-da u sheega hala baahiya baaqan iyo boole gurdeen baarlamaanku miya waa su'aal baaxad weyn oo bulshadeena u taale ma balaaya abuur baa baarlamaanku sidiisaba mise waa barkhadii qarankeena bilaysay iyo badbaadada beesha وبالله التوفيق مركا waxaan idin sheegayaa haduu ilaahay hayda arinta ilaahay waxa uu nafaray dib ha loogu celiyo oo ah cadaaladda in la sugo cadaaladda ha la sugo haday tahay dawladda federaalka haday tahay maamul goboleedyada sharciga ah oo jiro sida Jubbaland iyo Puntland maamul goboleedyada buuxiyay karateeriyadii macnaha hadana laga waayinay federalism ka loogu talagalay waana caddahay cadaaladda yaan la qarin ilmaada rayaal oo cadaaladda yaan la qarin waxyaabaha muuqdo lama qarin karo marka federaalka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada buuxiyay karateeriyada federalism ka oo hadana laga waayay ku guuleystay inay maamulkooda ay hadana laga waayay ay ku jideeyaan federalism ka laba saddexdooda waxaanu leenahay cadaaladda hal sugo wada shaqeeya ilmaada reeyal hal wada shaqeeyo qabiilkan laga tagi
xilli qabiil lama joogo system baanu qaadanay systemka aanu ku shaqeyno horta anigu sidaydaba waxaan ahaa dadka aaminsan in shareecada islaamka aan iska qaadano maadaama boqolkiiba boqol dad muslima aan nahay haddaad iska doorateen ileen dad intaasoo culimo ahoo waaweyn baa jooga intaasoo aqoon-yahano aa jooga intaasoo dad ahoo muslim hadday intay fadhiisteen isku raaceen in ay macnaha constitution ayagu ay samaysteen in dadka ay ku maamulaan hadday doorteen hadda anigu mucaaradnimadaydu micno badan ma samaynayso oo hadda waxa weeye laakiinse waxa weeye waqti baa lagu sugi karaa oo noocan federalismka aan nooc fiican oo Soomaalida loo habeeyay buuba u eg yahayba Soomaalidu waa inay garato in waxna la isla leeyahay waxna la kala leeyahay horta waxa in la fahmo way dhibaato idin haysata waxii hasugina oo dawladda haday dawladdan federaalka asugi iyo haday dad kale oo waxa maskaxdooda ay ku jirto ay jirtana waa inay ka tanaazulaan waa wax aan dhici doonin dawlad isku cabursan oo jamhuuriyadda Soomaaliya la yiraahdo oo wax noocaas la yiraahdo waxaas ma shaqeyn karaan la socda waa in adinkoo og waxa dhacay iyo waxa jira iyo xaaladda Soomaaliya adinkoo og ayaad isku dayaysan wax riya ah oo aan shaqeynayn la isku madayo war federaalka waxaan ahayn oo Soomaaliya ka shaqeyn kara ilaahay ballankiina inay jira xal kale ma jiro halka koobaad oo ku shaqeyn la waxay ahaan lahayd shareecada islaamka in la qaato oo nabadgelyada ummadda la sugo cadaaladda ilaahay noo soo dejiyana la isku maamulaayeen haddii ay noqon waayday federalismka wax dhaama wallahi inay jirin aqbala waad ku qasbantiin aqbala cadowgan haddaan laga waayinay khawaarijta oo ummadda in ay macnaha andhada dhulka u dhigaan rabana way idinka faa'iideysanayaan maxaa yeelay adinkiiba kala socda adinkiiba hadeerto gambar gaaban isugu fadhiyo oo hadaa lagu leeyahay habeennimadii baa la shafaya oo overnight baa waxba hadaa lagu leeyahay blackmail baa la isgelinaya oo maganaysa waxaas looma baahna hal la wada shaqeeyo oo walaalayaal wada shaqeeya midnimada ummaddu waa muqaddas haddaan laga waayinay laysmana caburiyo anigu waxaan khaasatan la hadlayaa Puntland baan si khaas ah ula hadlayaa anigu waa sayid jawaab sheekh khaliif arinta aan kala hadlayaa waxa weeye Puntland waa maamul goboleed ballaaran way dawlad goboleed aad u ballaaran oo ilaa 7 gobol weeyo markii lagu daro labadii gobol ee macnaha Cabdullaahi Yusuf uu sameeyay markii lagu daro waa 7 gobol weeyo marka kaba dhig baqaab sharciyeedka hadda la raacay oo federalismka lagu saleeyay la yidho 18 gobol ah hadaynu ka dhignana 5 gobol baynuna shanta gobol waqtigii la sameeyay isku raacnayo wada sameeysanay markaan hadda eego oo aan qaadaa dhigno oo si kalsta u eegnay ilmaade rayaalo inaan isku cabursanaano u maleen maaya micno badan oo buuran inay sameynayso state kaas haddaan laga waayinay khaatima state of Somalia in haddaan laga waayinay dadkaas dadaalkoodiina muujiyay oo ayagu haddaan laga waayinay boqolkiiba 85 baan dhihi karnaa ayagu macnaha u taagan in ay federaalkaasna taageeraan midnimada ummadda gobolkuna uu yahay gobolkii silsiladii midnimada ummadda Soomaaliyeed isku xidhaysay uu yahay ilmaade reelow dadka hadii la caburiyo wanaag badan ma dhaco ilaahay balan inuusan wanaag badan jirin cadaaladda in la sugo weeyo nimankaas anigu markaan saan u hadlayahay ee maleynina inaan khaatima state ka soo jeedo kama soo jeedo run baan idin sheegayaa laakiin waxaan idin sheegayaa cadaaladda in la sugo weeyo khaatima state in la ogolaado ayaan anigu kula talin lahaa maamulka madaxweyne Faroole ilaahay ha ka raale noqdo bal waxaan u sheegi lahaa inuu hoos intuu wax u eego intaan 7 gobol isku cabursanaan lahayn in nimanka hadii ay go'aansadeen inay state gooni ah noqdaan in caburiska laga daayo waan ogahay dadku wanaag iyo isjeclaansho way waxa dadka la isugu hayo laakiinse dib kuma xirna wax dhibo meesha jira ma jiro dadka in la kala babco way fiican tahay dadku waa laakiin in la kala babco way fiican tahay oo dadka in la kala babco aad bay u fiican tahay marka anigu waxaan u maleynayaa in ay u qalmaan in la taageero oo la aqoonsado in khaatima state of Somalia ay noqoto state Puntland deris la qolada Somaliland say u wada deal gareynayaan
ayaga yaqaan iyo ummadda Soomaaliyeed laakiin xiriirku ayagu waa silsilada isku haysa wadanka way inaan xaqiiqdana ogaano way wixiina in wax la soo ogolaado oo dadku in wax la soo ogolaado waan waxaan aaminsanahay gobolkaasi taariikh weyn buu leeyahay waa dad hero ah oo gobonnimadii wadanka qayb libaaxa ka soo qaatay in abaal Soomaalida Soomaali weyn abaal kama helin ummaleen maaya abaalkii ay mudnaayeen in ay heleen umaleeynayo laakiin se إن شاء الله تعالى إن ولا فهم دونه أيوم بان ملينا مركب وحنا كلها تلينا يا فرول يا مامول كيسة الله كرر للنقطة إلهي أبشرت هاي وافتشية لمن كخاتمة استيدة بل لما يهو هوس هالله إيجو كفريستو بل ارتكض دودا أنت هاد لك فريستان أقوية هنو يا مامول يا جورتيبة بل أنت لا فريستو والخاتمة استيد من مدن تاي إن لا أقولادو أو لا أقونصدو دولة فترالك أو أنك وضع حل الدوناية إلا وحن عنو اسكر عنه دولة اللوجة يا فترالك دولة فترالك إن ما هم معناه هذا فتراليزم كأنه فهمتيهم مركب وحوي وقولان هذا يا قنص هذا أنا جاي سكله وحنا كعد صن لها إن عقله وشقيه وخاتم استيد لو أقنصده استيد هذا لجويني فترالك سونا ستوسة وهو استجا سمعناها وضن كون نقضه وضن للدجية نبتقليديسة dadkuna waxay rabaan lagu dajiyay oo dadku waxay rabaan lagu sameeyo macnaha hoos laga soo dhisay si ay u noqoto in aad baan idinka ayaan idinku macnaha bogaadinaya sida wanaagsan oo aad u dadaalaysaan wixii aanan fahmin arrintanna halaysu dhimriyo oo dadku halaysu dhimriyo in la isu dhimriyo wax la isfahansiiyo oo hadallada iyo wada fadhiisiga la badsado Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa dadkuna wada hadallo ayay isku fahmaan xooluhuna urtay isku fahmaan bani aadan baan nahay waxaan noolaha kale ooga duwanahay waa aqliga way aqligu ha shaqeeyo ilma adeeryaal wixii muuqda yaan la caburin wixii muuqda yaan la caburin dawladda federaalka ana waxaan u sheegayaa ummalaan maaya inay tahay qaabka loola dhaqmayo Jubaland State qaabka dawladda federaalku ay oola xifaaltamaysa ama ay oola dhaqmayso ummalaan maaya qaab macnaha la aqbali karo uma eka waxayna muuqataaba wax iska soo wax soo banbaxay oo iftiinka banaanka la soo dhigay oo qaab xun oo qabyaaladeed baa muuqda waxaan hal iska daayo oo ceeb way waxaas dad aqoon dad cilmi leh baa dawladii qabsaday baa la yidhi aqoon u saaxiiba oo professor ah oo intaas la fiiriyo intaas dibkii loo mariyay in dad aqli leh la geeyo meesha haday maanta hadana dib ugu soo noqotay in lagu xisaab in qabyaladeed loo xifaaltamo waa qalad weey qabiilkana hal la qarameeyo qabiilka lama caburin karo laakiin hal la qarameeyo oo sida loo qarameeyo ilaa 4.5 baad markii hore wax ku qaybsateen oo qaab qabiile been kale inta la isu sheegana waxyaan la isku caburin oo hadana habeenkiina yaan la kala shirin maalintiina been yaan xafiis la isugu imaano waxbaan wada wadnaa yaan la dhihina runta la isu sheego qabiilka 5 ka horta laga dhigo baalkan 4 ka tuuro 5 un ha iska noqoto 5 kaasna wax la isla gartay oo la qarameeyay ceeb ma keenaane cadaaladda hal sugo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa aniga oo سيد جواب شيخ خليف ده إلهي بانو إذن توجينا إذن سو بريينا إنه أبشرت إذن وافتشيو أنا قلنا إن عندي بوصون نقنو حرفها يجي أنت عندي بوصون نقنو أنا سكبتاشنو وإلهينا أنو طاعدي سنة جدنو ودن كان سوجانتي مركي هربل لقصت الدبالة سوجانتن بس ده برضه أبو هند واتقرنا يسان وأكو وإحنا الدمين كرا وإحنا دس كراوي فهمت أنا سوش شيء ومدى الصومالية ودد صحفيين أوي وهذا الكنولة وي وسوقان كنولة وي إن هدان عدالة للسوقين أنا جوان افتيمينينا وحي قلد موجودة وان افتيمينينا كما عامل سكر إن أرين قاب قبيل أنا ما هقاب كأنا وجه لنا أيضا هنا أبان كهلنا إن سيدي وح موجودان وبالشدة وح أركته أيام أصلا بندقينا أنا وحبا ما قرنانا لكن نبتقليه ده هدي للسوق وعدالة للسوق oo dadku wada shaqeeyaan oo dadku saaxiibtinimo sameeya hal abuur inaad saaxiib dadkiina madaxda fariisto horta way isfahmo wada sheekaysta oo ma taxulaadan iyo macnaha hadaladan taag taagan iska bedela wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh